وهس لو تلقى قدوميها جاليد بوتلان تورونتو محمود أو محمد إسنكا واريدي لحنك أبوان محمد لقاف علمي موسيقي مولد حسن عدد كتولمونا وحا كل رأي داغ ديمن إيو مبارك ماري كعلوسو مجتمع بوتلان بات متشاد مانو كوميدي ستورنتي قولي سما حمود قدوم يا مناليو ميسان كعلوسو مجتمع بوتلان بات متشاد مانو كوميدي ستورنتي قولي سما حمود سيدو ضيح مقديقة وافتشاد اسين مقطعيو مسؤول غالياتهاي مسؤول غالياتهاي مسؤول غالياتهاي مسؤول غالياتهاي مرتدح سيدو ضيح مقديقة وافتشاد اسين مقطعيو مسؤول غالياتهاي مسؤول غالياتهاي مسؤول غالياتهاي مسؤول غالياتهاي كلمتنا مو ذنبات محسوبتك أبو بس كحذا ذريريو كمقوين قبيلكو مفتاحي وناقو أذيقا أمان مودن إن سعد سيو المناسبة دا إني حريريو الرول كنت أسويه هذه أدب حاجة ما علينا دمان كسوق بقلاياشة عن حفلة دان قيمها بدن إنك سويت ضد كنا صوص صعدان أو حوي مهرب كده لتوكدي حفلة دان عاو أو حوي سبورك إنك مقطبة دا فركة شاريد تورونتو كندا إن هورينا طبعا ويتشدي أو حوي سوش غينيسي إن عاونا وحوي يو حلوريتشنتا قدومية هوري يو إن على مسارك قدومية عصب إن مركا حفلة دان أساسية إن هدي إلهي إدمو ما دعوة الإسلام ونهميل السجون معني وأقوه الرئيو أنكو بالعبانين وحوي وآياتها قرآن كريم كأه وإنه آخرين دونه كيسة شكرا سدو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. xafladdu waan saan sheegay ciwaankeeduna halkaa uu ka muuqdo sidoo kale waxaan meesha ka maqnayn oo inuu ku jirdha inaynu mar walba xusno oo xasuusnaano oo waxa weeye aynu u ducayno ciidamadeena geesiyaasha ahaa ee Puntland oo waxa weeye maanta u jeedaan waxa weeye magaalada Boosaaso ahayd waxa qurux ka socota adduunka dhaga soo jeedatay inaynu u ducayno oo waxa weeye mar walba aynu xasuusnaano because of waxaynu ku qurux badanahay waxa weeye waa wiilal inoo kale soo ku labisnaan lahaa xaflada u joog lahaa sidoo u soo xiran lahaa inay godka u galeen marka waa in mar walba taas oo ay niyada ku hayna mar walba aan laba qof ama aan ka badan ba isugu nimaanana waa in xasuusnaana taas weeye marka hadayna xasuusna keenin nafteena u dhintay waxa weeye hadii waxa weeye waxa xasuusnaan ma wajir marka arintaas baayana ku jidha marka waxaan codsan lahaa intaan u gudbin speakerka igu xiga in aynu hal mar faatixada u marno shuhaadadii waxa weeye godka u galay darteen ilaahay waxa uga rajaynayaa intii u dhimatay dadkooda iyo dalkooda difaacaya diintooda inuu jannada ilaahay geeyo waxa weeye ilaahay qabriga u waasiciyo jannada geeyo shahiidiin bay ahaayeen dalkooda dadkooda u dhintay sidoo kale ilaahay waxaan uga rajaynayaa ehelada iyo qaraabada ay ka dhinteen inagoo ilaahay samri iimaan ka siiyo waa muhiim mar walba inaan xasuusnaano ragga buuraha ku dhintay iyo dalkooda difaacaya meel kasta hadda markay aragtaan waxaad maskaxda gelinaysaan mahad waa heesi doonaa anigu hadda xogaa heesii waa ka nasanayaa waxaan ay xildhibaan u sharaxan federaalka arrintaas waa culus tahay laakiin idinkay idinku xiran tahay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey xafladaha Puntland iyo qabanqaabada gobolka Minnesota magaalada Minneapolis 27 sano ayaan arrintaas ku mashquulsanaa ku jiray waxaan aad ugu faraxsanahay finally Canada inay isu timid isla markaasna ay soo baxeen dhalinyaro yaryar oo raba hawsha inay halka ka wadaan runtii kadib markaan wareystay oo la fariistay Maxamuud waxaan gartay inuu yahay nin ka soo bixi kara shaqada maxaa looga baahan yahay in gudoomiye jaaliyadeed la sameeyo khibradeyda markaan ka hadlo waxaa looga baahan yahay runtii waa isku xirka bulshada Puntland iyo magaalada Toronto ama waqooyiga Mareykanka gaar ahaan dalka Canada maxaa kaloo looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay in markii ay dhacaan abaaraha in xafiis la furo dadku ay isu yimaadaan iyo arrimo aad u fara badan waxaa idinka codsanayaa mar rabo waqtigiina idinku dheereeyo inaad la shaqaysaan Maxamuud waxaan kaloo idinka codsanayaa inaad samaysaan guddiga khilaafaadka macnaheedu waxaan ka wadaa haddaad idinku dhexdiina isku qabsataan aniga gudoomiyaha guddi kala saara oo la yiraahdo guddiga khilaafaadka Puntland inaad samaysaan dadku waa walaalo anigu waxaan iraahdaa Soomaalidu waa mid qura waa mataane iyo walaal magacu waa lama huraan midda kale waxaan aad iyo aad runtii rabaa inaad ila qaadataan talada ah Soomaaliya mid ah haddana waxaan ka soo jeednaa Puntlandna waxay u baahan tahay garabkaasna ma aha mid dhaqaale waxay u baahan tahay inaad iska ilaalisaan makarafoonada intaad soo qabsataan inaad dacaayadeysaan ama wax ka sheegtaan dowladdeena Puntland taas waa inaad iska ilaalisaan sababta maxaa yeelay waxaa la yidhi dadkaaga iyo dalkaaga iyo diintaada haddaadan waxba tirayn waxba ha u dhimin marka walaalayaal waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanayaa inaad la shaqaysaan Maxamuud ama magaca quruxda badan uu leeyahay oo la yiraahdo isinka waxaan kaloo idinka codsanayaa in aad runtii isu keentaan bulshada
aad buu mahadsan yahay runtii mahad wuxuu noo soo jeediyey hadal muhiim miisaankiisa muggiisa leh akhyaarta dhinacaan fadhida midigta ah waxaan ka codsanaynaa inay saan u soo buuxiyaan say kaamiradu u buuxiso inay xaggaan u soo buuxiyaan dhinacaan soo buuxiyaan kuraasta marano gadaale xaggaas inay saa u soo buuxiyaan baan ka codsanaynaa fadlan dhinacaan soo buuxiyaan insha Allah haddii Allah idmo baan ka codsanaynaa haddana waxaa soo gelaya gudoomiye maxamuud xasan oo maxamed isinka iyo gudoomiye hore sayf oo wada socdo baa soo gelaya insha Allah gudoomiye mumaliyo miisaanka culuso mujtamaca buntlandba matasha dhammaano ku midaysa toronte guulaysa maxamuud gudoomiye mumaliyo miisaanka culuso mujtamaca buntlandba matasha dhammaano ku midaysa toronte guulaysa maxamuud magacii qofkeena meel sare u qaado maylkabu adigii mana lihi waaye guulaysa maxamuud magacii qofkeena meel sare u qaado maylkabu adigii mana lihi waaye guulaysa حسيدو دلح مدينة وإفليشا اسم مقطعيو مسؤول غالياتاي مسؤول غالياتاي مسؤول غالياتاي مسؤول غالياتاي مرتاح حسيدو دلح مدينة وإفليشا اسم مقطعيو مسؤول غالياتاي مسؤول غالياتاي مسؤول غالياتاي مسؤول غالياتاي كلمتنا مضبات محسوتك أبو مفتاح ذا ذريري كمقوي قبيلكو مفتاحي وناقو أديقا أمامو كلمتنا مضبات محسوتك أبو مفتاح ذا ذريري كمقوي قبيلكو مفتاحي وناقو وليس محمود ميريد الغابة مملوك سيرو ما يركب الأدرو قمص مركوين مثل عوياتاي ميريد الغابة مملوك سيرو ما يركب الأدرو قمص مركوين مثل عوياتاي حسيدو دلح مدينة وإفليشا اسم مقطعيو مسؤول غالياتاي مسؤول غالياتاي مسؤول غالياتاي مسؤول غالياتاي halkan waxaan uga yeerayaa xurmad leh gudoomiyaha guud ee jaaliyadaha qurba joogta dowladda Puntland BDF Puntland Diaspora Forum Maxamed Abuukar inuu noo furo ma garanaysaa munaasabadda caawa بسم الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاليد شرفت له رير تورنتو وعاوة إن بدن هالكان كتشوغان مناسبة دان وروح بدن حلك الوكل وريتشين هيو لو ده قدومية دالين يرادا هولا بدن سوق قبطي بونتلاند كترسن reer Toronto ah marka hore oo hambalyeeyna waxaan kale u hambalyeynayaa Soomaalida ka soo qayb gashay caawa
xafladda quruxda badan ee loo sameeyey caleemasaarka maxamed isin iyo xil wareejinta waxaan idin xasuusinayaa oo hadalkayga ka mid noqonaya in Puntland ay Soomaaliya dhan ku dhan tahay meesha wajiyada iga muuqda taageerayaasheeda iyo ka tirsanaanteeda iyo ummadda halkan joogta aad iyo aad baan u bogaadinayaa una hambalyaynayaa waxaa sharaf noo ah reer Puntland in maanta ciyaarihii ka socday magaalada Boosaaso oo lagu magac daray shuhadaaga inay Soomaaliya oo dhan bishay si qurux badanna ciyaarahaasi u qabsoomayaan finalkiina la qaban doono dhawaan ciyaarahaas ciyaar laguma qaban dagaalkii calmiskaad ee lagu qaaday nimankii ka soo horjeeday nabadgelyada iyo ummadda shacabka Soomaaliyeed ee argagixisada ahaa raggii la dagaalay qaarna dhinteen qaarna nool yihiin qaarna dhaawacmeen iyo intiinaan iyo in ka badan oo ka qayb qaadatay taakulayntooda iyo dhiirigelintooda ayagana waa xusaynaa intii dhimatana Allah u naxariisto inta noolna Allah bogaadiyo inta bugtana Allah u boogadhayo waa ogtiin meeshan hawl badan baa ka dhacday dagaalkii la galay jaaliyadda Toronto iyo North America iyo Europe qeyb weyn ayay ka qaateen in arinta dagaalka ah lagu dhiirigeliyo lana garab istaago ciidamada Puntland waxaa hadda lagu jiraa waqti kala guura oo siyaasadii Soomaaliyeed ay meel adag marayso magaaladii xamar ahayd waxa ka socda kulligii waa la socotaan waxaa ku wareeray ummadii oo dhan waxaa yaaban dadkii Soomaalida u gargaari jiray oo ajaanibta ahaa oo jeclaa mar inay arkaan Soomaaliya cageeda ku istaagtay waxaan rajaynaynaa in dadka qaldan waan naqaanaa madaxweynihii hore number 1 iyo dowladdiisu inay Soomaaliya u dhimriyaan oo si wanaagsan xilkay u qabteen u ogolaadaan dadku inay masiirkooda ka tashadaan haday soo noqonayaan iyo hadii kaleeto waxaa intaa dheer nabad Soomaaliya haday hesho dowlad mustaqbalana ay hesho oo wanaagsan oo cadaalad ah oo Soomaalimadu ku weyn tahay waxaan filayaa inaan qabowgan anaguna sii joogneen dalkayguna u baraari lahaa waa inaan u ducaynaa dalka waa inaan runta ka sheegnaa waa inaan xaqa tusnaa meel walba waxay u baahan tahay cadaalad iyo dowladnimo iyo sinaan waxaan ku bogaadinayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani doorka uu ka qaatay dagaalka iyo nabadeynta uu ku soo dabaalay Puntland Soomaaliya inuu gacan u fidiyo ilaahayna isaga iyo mucaaradka ku guuleeyo inay arinta mustaqbalka Soomaaliya si wanaagsan oo tabantaabsan ay uga shaqeeyaan oo aan laga caajisin Soomaaliya waa mid bayna ahaan doontaa weligeed waa jiri doontaa haddii ilaahay idmo ilaa yawmal qiyaamaha laga gaaray waxaan u rajaynaynaa inta naga dambaysa inay nolol iyo mustaqbal fiican ku noolaadaan waxaan idin leeyahay guuleysta si sharaf leh aad uga soo qayb gasheen niyadiina saalaxa saacadaas aad gurigiina ka timaadeen waxaan idin rajaynayaa bogaadin waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waxa uu yeerayaa Shirwa Cabdulle oo ku hadlaaya
وأنا أفهينك جالية تورونتو كندا بالك ويريا شو رأسودو waxaan halkan ka bogaadinayaa ka soo qaybgalayaasha xafladda gudoomiyaha cusub caana shubkiisa magaalada Toronto ee dalka Canada mudane maxamuud oo maxamed gaar ahaan maamooyinka iyo mas'uuliyiinta iyo dhalinyarada iyo madaxda hore iyo madaxda nala joogta intaba oo nagala soo qayb gashay xafladda oo ugu horeeyo mudane xildhibaan furin waxaan aad maartay aan u salaameynaa oo aan leenahay soo dhawaada aad baa u mahadsantiin haddaan wax yar oo faahfaahina idinka siiyo jaaliyadda sida aad wada ogsoon tihiin waxay soo martay marxalado kala duwan oo qori isku dhiib ah waxaase hadda maaragtay loo doortay inuu 3 sano oo soo socota hadii la yiraahdo uu xilka u hayo mudane maxamuud oo maxamed oo hadda ah xildhibaanka mudanaha jaaliyadda hogaaminaya waxaa sharafi ah inaan idinla wadaago xubnaha guddiga ka tirsan jaaliyadda oo ay ugu horeyso gudoomiye ku-xigeenka yaasmiin oo halkan inoo fadhida waxaan kaloo idinla wadaagayaa xafso cabdulqaadir maxamed oo ah xoghayaha jaaliyadda xafso please soo dhawow please xaggan soo istaag waxaan kaloo isagana xusayaa xuseen faysal xuseen oo ah gudoomiyaha maaliyadda jaaliyadda u qaansan isagana waxaan rajaynayaa inuu xaggan soo istaago si aad u barataan maadaama uu bulshada u shaqeynayo haddii la yiraahdo haddaan halkaas faahfaahin yar aan ku daro jaaliyadda Puntland ee dalka Canada marxaladaha ay soo martay marka laga tago xaggan soo istaag marxaladaha ay soo tagtay marka laga tago waxaan macnaha annaga aan ku oo aan rabaa macnaha inaan ku daro waxaan ku xusanahay hufnaan iyo cadaalad waxaan rajaynayaa jaaliyadda aad nagu aaminteen inaan mar walba aan ku suntanaano cadaaladda iyo isxilqaanka mar walba aan u hayna bulshada dhexdeeda annaga ujeedadeedu ma ahan kaliya inaanu maaragtay jaaliyadda kaliya aan matalno waxaanu jecelnahay oo macnaha bulshada inaan la wadaagno waxaan tartan kula jirnaa bulshooyinka kale oo haddii ilaahay ku ogol yahay waddanka nala degan sida hindida iyo filibiiniska iyo wixii la mid ah oo annagu qabkaygu waa ka wan yahay inaan macnaha annaga kaliya aan isku maaragtay haddii la yiraahdo marka saa ula socda waxaan halkan aad ugu mahad celinayaa iyadana gudoomiyihii hore ee nala jooga mudane Seef Cilmi waxaan leeyahay waad mahadsan tahay inaad nagala soo qaybgashay xafladda iyo sida hufnaanta leh oo aad xilka ku wareysay waxaan rajaynayaa inaad nala shaqeyn doonto insha Allah bismillaah karim marka annaga ka jaaliyad ahaan macnaha hadafkaygu wuxuu yahay hadafkaygu waxa weeye inaanu macnaha midayno oo xoojino horumarino dhammaan bulshada reer Puntland oo ku sugan Canada gaar ahaan Toronto fishinkayagana wuxuu noqonayaa inaan xubin firfircoon oo la jaanqaada bulshada qaybaheeda kala duwan oo haddii ilaahay ku ogol yahay dhaqanka iyo isdhexgalka bulshada xoojisa waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan macnaha khudbada ku soo gabagabeynayaa waxaan rabaa inaan laba eray ka dhaho maxamuud qofka uu yahay ninka loo doortay gudoomiyaha kulligii sidaa ogahay waa nimaad wada garanaysaan oo ah nin aad iyo aad u macquul ah 10 sano la soo dhaafayna bulshada u adeegayay si volunteer ah marka waxaan rajaynayaa nin idinku cusub inuusan ahayn oo ma aragtay aad la shaqeyn doontaan
marka waxaan leeyahay hadal badan haan buuxsho waxaana looga fadhiyaa hawl badan iyo waxtar badan insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan u yeerayaa hadda hadalkaan siinayaa insha Allah haddii ilaahay idmo xurmad leh boqor Axmed boqor Maxamuud boqor Muuse kelmadiisa inuu yiraahdo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celinaynaa oo insha Allah oo sukay keenay xafladan quruxda badan oo qiimaha badan ilaahay waxaan ka baryaynaa sidoo kale inuu marar badan sidaan oo kale sukay keeno xaflad sidaan oo kale ah wax yar haddaan fursad yar u helo waxaan jeclahay inaan runtii u tacsiir ka diro halkan iyo baaq shaqaaqa ka dhacday Puntland gaar ahaan Sanaag ay dad walaalo ah oo ehel ah oo colaad sokeeye ku dhaxmartay runtii masiibo weyn baa halkaa ka dhacday halkaan anigoo magaca jaaliyadda iyo odayaasha ku hadlayo waxaan jeclahay inaan halkaan baaq tacsiir ah oo nabadeed ah ka dirno masiibadaasna ilaahay inuu nagu soo celin intii dhimatana ilaahay u naxariisto intii dhaawacaan ilaah u boogadhayo runtii intaan garaadsaday wax aan hore u arag ma ahayn xabaalo wadareed aad u fara badan baa ka dhacay meeshaas runtii annaga iyo jaaliyadda dhammaanteedna waa ka tacsideynaynaa fariintaana waxaan u marinaynaa dadka deegaankaas runtii dowladda Puntlandna waxay ka qaban kartay waa ka qabteen oo way dhex galeen ciidan waa u direen iyaguna ugu mahad celinaynaa haddaan u soo noqdo ujeedka caawa iyo xafladda iyada halkan runtii oo muddo dheer la soo dhirinayo oo sanad ku dhawaad ay guddoomiyihii hore oo seef oo asna shaqaynayay muddo gaaban oo aan ku ogaa oo shaqo badan uu geliyay runtii oo si transition ah oo nabadgelyo ah oo dimuqraadi ah ayay xilka isugu wareejiyeen annagana marqaati baan ka heen odayaal ahaanna waxa weeye hawshaasi waanu dhex galnay waana noo dhammaatay doorasho qiimo leh oo aad u sharaf badanna runtii ka dhacday sidoo kale waxaan annaga iyo odayaasha aanu aad isugu taxaluujinay inaynu khilaafka aad u yareyno magaaladan waa magaalo weyn oo ay degan tahay dad kor u dhaafaya 3 milyan laakiin Soomaalidu waa iska 120,000 meelahaas aan ku qiyaasaynaa waana dad yani moogtahay kala daadsan runtiina muddadii ay jaaliyadii hore ay shaqaynaysay fursad badan uma helin waxaan insha Allah jeclahay jaaliyadda inay markaan isgarab taagaan Maxamuud iyo Yaasmiin oo ay hiil iyo hooba iyo talo iyo tusaalaba u noqdaan taasaan ilaahay ka baryayaa adunkana waxaan idinka rajaynayaa inuusan inaydan noqon dadkii intay Maxamuud xil intay u dhiibaan oo aan waxba aan garab ku siin Maxamuud waxa weeye iyo Yaasmiin waxay u baahan yihiin garabkiina u baahan yihiin inaad ka war haysaan baad u baahan tihiin sidaas ula socda waxa kaloo halkaan hadayt mahad wax yar buu arin ka dhawaajiyay inuu tagay baan u maleynayaa mahad runtii waa runtiis annagu muddo dheer baanu isku dayeynay inaan wax walba aan yareyno khilaafa odayaashana weli waa u taagan yihiin inay khilaafkaas iyo waxyaalaha yararkoo jira in la dhameeyo laakiin Maxamuud waa guddoomiyaha rasmiga ah ay jaaliyadda Puntland leedahay ee Toronto iyo nawaaxigeeda taasaan cadeynayaa waana ku mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina waxaa idinkaga baahan yahay inaan meesha loogu harin Maxamuud mar labaad baan idinku celinayaa way dhacdaa in guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen inta la doorto oo aan la garab taagnayn waxa loo baahan yahay wixii garab iyo hiil iyo hooba iyo tale iyo tusaalaba inaad u noqotaan Maxamuud iyo Yaasmiin iyo guddigii halkaan idin hor taagnaa marka insha Allah aad baan idin salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
waxaan sii wadanaynaa khudbadihii inoo socday halkan waxa uga yeerayaa adeer muuse shaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهذا ودن إلهي بإسكال حلقة سوكين كيني إنه فرحسن وعافمات قبلنا سورة نبيد أرين وراكسن تلهينا المستقبل كينا إنه كتشنو ويحي كو وراكسن قبلنا aad baan idin salaamaya dhammaan dadka ka soo qayb galay oo jaariyada Puntland iyo Soomaalida oo dhan aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaynu u baahanahay Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal badan haaban buuxsho waxa loo baahan yahay hadal kooban oo macno leh ayaa loo baahan yahay waxaynu u baahanahay inaynu ismaqallo oo taageero oo aynu yeelano madaxdana aynu raacno oo saboorti garayno oo la shaqeyno si aynu u gaaro guul iyo horumar waxa lagu gaaraa guusha iyo horumarka waxa lagu gaaraa midnimo iyo ismaqal iyo discipline waxa la yiraahdo waxaynu u baahanahay laba arrimood haddii aan la helin ma hagaagayno waxna ma qabsan doono waxaynu u baahanahay daacadnimo iyo run baynu u baahanahay run qofka mas'uulka ah hadduu been sheego mas'uul ma waxaynu u baahanahay inaynu inaguna wax noqono oo waddanka aynu joogno dad ka muuqda oo waxtara aynu noqono waddankeennii iyo dalkaynu ka nimidna guud ahaan iyo gaar ahaanba waxaynu u qaban karno inaynu u qabanno oo aan raadinno midnimo iyo isku duubni iyo horumar Soomaalinimo ayaynu u baahannahay qof waliba intuu nool yahay muddo yar buu nool yahay inta uu nool yahay wuxuu u baahan yahay inuu wax qabto oo wax dantu ku jirto dadku u baahan yahay wax ka haraan waa in ka hartaa taariikhi ka hartaa wuxuu yiri nin baa hadlay wuxuu yiri maan mahadin maantaan dhashay oo masaxradeen buu yiri macna ma laha noloshuba haddaadan magac ka reebayn waa inaad wax ka reebtaa nolosha oo intaad timaado kala wadalaq looma baahna inaad inta timaadid haddana iska tagtid macno weyn ma samaynayso waxaynu u baahannahay wax qabad baynu u baahannahay daacada waxaan hambaliyeynayaa oo soo dhaweynayaa gudoomiyayaasha xilka isku wareejinaya ee jaaliyadda aad iyo aad baan ma u salaamaya una bogaadinayaa waxaana leeyahay guulaysta arrintaas waxaad u shaqaynaysaan waa community-ga laydin doortay oo laydin magacaabay idinka mas'uulka aniga mas'uulka iyo gabadha ku xigeenka in lala shaqeeyo oo la isgarab taago ayaynu u baahannahay aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh guulaysta adeer aad iyo aad u mahadsan tahay waxaynu ku soo biiray oo hadda inoo yimaaday wasiirkeennii hore ee dekedaha iyo khayraadka badda wasiir maxamuud xaaji saalax waxaa kaloo marti sharafta ka mid ah inala jooga dhowr hay'adood oo ay ka mid yihiin midaynta aynu kala joogto ubax waxaa inala jooga ururka today hoosoo kale nuurin kala joogo aan mahadcelina dhammaantood halkan waxaan jeclaan lahaa halkan uga yeero kelmadda ubax oo ku hadlaysa afka midaynta oo runtii ah hay'ad qof kasta oo halkaa yimaaday waxa weeye oo Soomaaliyeed caawisay family Soomaaliyeed halkaa yimaaday aysan hay'adaas caawin ama ururkaas caawin ma jira anigana Allah ka dhigay marka runtii ubax iyo hay'adeeda waxa abaal weyn baan u haynaa waxa weeye Soomaaliya abaal weyn bay u haysaa waxa aan ku darayaa ubax waxa weeye dadka ina caawis kaliya ma dhalinyarada xitaa waa shaqaalaysiisa oo lama xisaabi karo inta dhalinyaro mataqaanaa internship ay u diday oo shaqaalaysiisay oo experience ka heshay waxa weeye xarunteeda marka aad iyo aad baan waxa weeye uga mahadceleynaa oo soo dhaweynayaa ubax habeen wanaagsan waan salaamay salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh I'm honored in ma aragtay la imeeshan gareeyay aniga imeeshan ka shaqeeyo iyo waxa aan qabto waa ku faraxsanahay
but Awa is not about me. Awa it's about, mashallah, and Isin Mahmoud. oo hadda bilaabo xitaa بريمة دمينكري waxa uu qabtay iyo waxa uu yahay iyo qofka uu yahay, but we don't have Awa dhan ma heesano. waxaan kaloo ku faraxsanahay walaasha Yasmin in gudoomiye ku xigeen ay tahay. Usually meel kasto aragno raga la isku xijiya gabdha ma la siiyo Janiska, marka u sacbiya Yasmin. hadda ay heesta dhageysanayo oo Maxamuud lagu soo gelinayo qaarna waaba ilooba already wax taro fiicano waxaas dhan la dhahay. Maxamuud ma capture garaynayso hal heestas kaliya, 10 hees oo kale u baahan yahay. qofka mas'uulka ah lama qof kasta oo bilow aadana awood uu leeyahay, wuxuu leeyahay power oo Ilaahay siiyay wax qaban karo. I don't think qofka inuu u baahan yahay magac iyo title inuu wax qabto. qofka marka intaan title kala gaarin, Maxamuud asagoo wadanka joogo 10 sano waqti ka yar, aan aniga ma sha Allah tabarakallah already waxaan la yaabay waxtarkiisa. wuxuu ka waxtar badan yahay dad 40 sano meeshaan joogay honestly. qof bilow aadana oo aad u akhlaaq badan oo aad u degan oo guri fiican ka imaaday oo diin leh waaye, oo integrity leh. every day office ku qof ii soo diraya, qofkan housing si, qofkan shaqo si, qofkan maxaan ku iraahdaa jaamacad wadan kale uga soo baxay credentialskiisa lama aqbalaaye volunteer ha kula sameeyo. marka asagiyo cusub oo dad badan caawiye capacity-ga iyo magac asagoon haysan, oo wallahi wuxuu caawiye dad aad iyo aad u badan. Ilaahay khayr badan ha siiyo. maanta oo la siiyay platform uu ku shaqeeyo iyo resource-na, waxaan rajaynayaa intuu hore u qabtay 10 jibaarkeed inuu qabto. marka dadkii hore sheegay waxaan sheegi lahaa Maxamuud iyo Yasmin ha lala shaqeeyo, because far kaliya fool ma dhaqdo. advice-keena u baahan yihiin, inaan la aruurno finance u baahan yihiin, meesha waa la wada leeyahay in lala qabto u baahan yihiin. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay idinku ceeb asturo, ma aragtay hawshan la idin dhiibay, annagana waa idin support garaynaynaa. soo dhawaada. santahay ubax Ali Faarax. waxaan rabaa inaan ku xijiyo kelmadooda dhahaan ururka Today oo iyagoo inala jooga. ururka Today iyaguna waa urur kale oo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed shaqo fiican u qabtay, caawiyay runtii. waxa weeye aad iyo aadna runtii aanu ugu mahadcelinayno roolka ay qaateen oo waxa weeye dadkan Soomaaliyeed horumarkooga iyo mataqaanaa isku xirkooga iyo waxa weeye hagidooda. marka waxaan u yeerayaa Nuure oo waxa weeye ku hadlaya afka ururka Today. bismillaahi raxmaani raxiim. salaamu calaykum dhammaan walaalay, waa mahadsantihiin kasoo qayb gasheen. anigoo ku hadlaya magaca ururka Today, aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan aad iyo aad uga hambaleeyaa walaalkay isinka Maxamuud. waa nin qaali ah oo isku hay karo bulshada. markii wax la doorayna waxaa loo baahan yahay qof dadka isku hay karta in meesha la keeno. marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. bulshada Puntland waa mahadsantihiin, shaqada aad qabateen waa mahadsantihiin. salaamu calaykum. waxaan si xushmad leh halkaan uga codsanayaa aan ugu yeero gudoomiyaha dhalinyarada gala Canada, laakiin annaga u naqaano quruxdii Canada, Idris Abdi. rag iyo dumar waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan kaloo halkaan uga hambaliyeynayaa saaxiibkay marna gudoomiyaha jaaliyadda Puntland Maxamuud Isin iyo aniga saaxiibo horaan nahay. taariikhdeena hadda inta ka sheega dhahana waxay waqti badan ay qaadanaysaa idinkugu marka waxaan leeyahay Maxamuud meeshii hogaamiye laga rabay taagan yahay Maxamuud, waana asiibteen ninka aad u doorateen gudoomiyaha. si fiican ay u asiibteen Maxamuud gudoomiye u doorata. Maxamuud waa nin dadka isku wadi karo, jaaliyadda Puntland isku wadi karo. aad iyo aad waan mahadsantihiin doorashada aad doorateen Maxamuud. anigana maanta Maxamuud waxa kale u wadaa codkii reer Tawfiiq. Maxamuud waa siyaasi reer Tawfiiq codkeeda ayaa
marka aad u mahadsantihiin waana hambalyeynaa saaxiibkay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa inoo jooga khudbad kaliya ma ahan waxaa inoo jooga fanaan qaali ah oo waxa weeye baa inoo jooga kaysayare entertainment wayna ku jira hadal kaliya ma ahan insha Allah marka waxyaalo badan oo sabaraysa soo socda waxa weeye hal dul qaato insha Allah hal la isdhageysto والله ما هو راني
aad iyo aad buu mahadsan yahay fannaankayse haddana waxa uu yeerayaa kelmaddiisa inuu yidhaahdo wasiir maxamuud xaaji saalax wasiirkeena hore ee kalluumaysiga ee kheyraadda badda wasiir soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan waxgaradka odayaasha ugaasha
iyo dhalinyarada halkan iskugu timid haweenka Soomaaliyeed waan u arkayo lafdhabarta ummaddu inay yihiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa halka kan inaan hambalyo uga jeediyo ciddii iyadoo isku mashquulisay inay soo agaasinto xafladda tan quruxda badan oo aan filayo ujeeddada ka dambaysaana inay tahay wax u qabadka iyo daryeelidda ummadda Soomaaliyeed ee daafaha ku dhibaataysan ama ha noqdaan kuwa hore u joogay ama kuwa hadda yimid waxaan leeyahay hambalyo isin Maxamuud hawsha lagu doortay ma aha mid fudud horay anigu waxaan u soo ahaa gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Somali Canadian Association 1994 inta wixii ka dambeeyay waxaan ku jiray jaaliyadaha Soomaaliyeed haddii noqon lahaayeen Mareykanka oo aan ka ahaa President Somali United Council iyo Puntland Diaspora Forum intaba waana halka ugu dambeysay aan siyaasadda Soomaaliya ka aaday waxaan u malaynayaa halkaas way halka uu tiigsanayo saaxiibkay Maxamuud waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo dadka degan ama bulshada reer Puntland ama gaar ahaan Puntland aan iraahdeen laakiin guud ahaan Soomaaliya mar walba waxay ku habboon tahay in gacmaha la isqabsado la iskaashado lagu midoobo waxay doonto ha noqoteen markaan halkan aan joogno waxaanu nahay Soomaali taayna niyadda ku haysaan Soomaaliyana waxa la yiraahdaa waa midba marka dibadda la joogo Puntlandna waxay ka tirsan tahay Soomaaliya midnimada jiritaanka Puntland waa mid muqaddas ah oo lama taabtaan ah sidaad idinku u tiraahdaanba Soomaalida jiritaankeeda iyo midnimadeedu inay tahay muqaddas waxaan rabaa in yar waynu ognahay waqtiga oo aad late oo ah haddana waxaa habboon waxyaabo badan in la istusiyo waxaana ka mid ah waxa maanta Soomaaliya ka socda inaynu wax ka niraahno aynu wax ka ogaano waa fiican tahay marka Soomaaliya leeyahay Soomaaliya markaan leeyahay waxaan u jeedaa gabi ahaan ba Soomaaliya oo ay ku jirto Puntland maadaama Puntland ay ka mid tahay Soomaaliya waxa wax ku soo bartay cashuurtii hooyada Soomaaliyeed laga qaadayay ee aan loo arkin hooyada Soomaaliyeed meesha ay ka timid iyadoo ku gadayso suuqa yaayada cashuurtii laga qaadayay wax ku soo bartay inta kaliya ma aha waxbarasho kaliya ma aha buugaagtii hurdadii waxaan xasuustaa go'a caawa sariirta saaran inaan habeen dambe ku seexanin taana waxay ahayd dowladnimo dhab ah oo markaa jirtay oo cagaheeda ku taagnayd waxaa idin leeyahay in la isxasuusiyo ujeeddada aan u socda aan u gulleeyahay waxay tahay waxaa nasiib darro ah in aniga ila mid ah ee sidaas wax u soo bartay oo ku soo bartay cashuurtii dalka inuu haddana dumiyo iskuulaadkii waxay xanuun igu reebtay gabadhii Soomaaliyeed ee iskuulka aaday ee duhurkii soo noqotay iyadoo gurigeedii meeshii laga dumiyey waa xanuun xaqiiqdii markaa idiin sheego
waxaa habboon qof kasta oo Soomaali ah meeshuu doonaba ha jooge inuu marka hore wadaninimada Soomaaliya u dareemo jiritaanka waxaad moodaa ownershipkii Soomaaliya inuu sii lumaya moodaa macnaha dhuuxa Soomaaliya ama dunta Soomaaliya waxaan taa ula jeedaa rabaa inaan u sheego dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu tilmaamo 75% ilaa 80 inay noqon doonaan jiilka bedeli doona kuwa hadda jooga iyaga looga baahan yahay inay u tafaxiitaan oo ay u guntadaan qadiyadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waa lama huraan loo noqonayaa inkastoo xafladda tan aysan ahayn mid gundugeedu sidaa yahay oo ay tahay farxad iyo reerayn gudoomiye cusub oo la doortay haddana waxaan leeyahay mar walba waxa wanaagsan in dadku ay ogaadaan halka ay ka yimaadeen iyo dhibta Soomaaliya ka jirta oo ay ka fikiraan waxa laga qaban karayo wax walba waa la qaban karaa dib markaan u raaco Puntland waa jirtaa waa jiri jirtay waana jiri doontaa Puntland waxa ay soo martay marxalada badan oo runtii anigu aan goobjoog u ahaa waxaan wasiir u ahaa Dr. Cabdiraxmaan Faroole wasiirkiisii beeraha waxaan u malaynayaa intiina badan waxaan ahaa wasiirkii ka abuuray oo iyadoo wasaaradda beeraha bunka abuur ahayd ilaa hadda way jirtaa wasaaradda beeraha أنا أقول فرح سنة هاي وأنا كم يشين قريو أنت الوزير كأها تمرتي عن كبيري إلى عن كو أفوري أنا أقول إسلا وزير كيا تمرتي أصو أدو جاوان واحد نكي كوب اللابي Puntland markay soo go'dayna aan noqday shakhsigii ku afuray timirtaasi waxaa nasiib wanaag ah in dowladdii cabdiweli aan ka ahaa gudoomiyihii dib u heshiisiinta oo markaasi aan ahaa kuwii shirka ku qaban jiray magaalada Gaalkacyo markii ugu dambeysay waxaan ahaa wasiirkii kalluumaysiga iyo kheyraadka badda inta waxa dheeri u ah Puntland kaliya ma aha dowladda federaalkana waa soo maray waxaan rabaa inaan in yar ka meeshin gareeyo horumarka ay Puntland ku soo tallaabsatay marka laga bilaabo from the bottom waxaan u malaynayaa institution ka dhisan waxaa dhisay xaqiiqdii markaa idiin sheego oo bilowga ahaa waxay ahayd dowladdii markaasi Cabdiraxmaan ahaa haddaa xasuusataan iyadoo sidaa ay tahay oo Puntland loo dhisay ujeedada loo dhisay ahayd laba qodob qodobka horena wuxuu ahaa in Soomaaliya oo kala tagtay laga badbaadiya dagaalka sokeeye kadibna markii la dhisayna waxay ahayd in la raadiyo Soomaali weyn walina waxay ku taagan tahay raadinta Soomaali weyn intaad arkaysaan yaan khudbadda idinku dheerayn haddii aan bilaabo waxaan u malaynayaa saacad iyo 2 saacadood midna qaadan mayso xaqiiqdii markaa idiin sheego laakiin waxaan ku soo gabagabeynayaa aan leeyahay reer Puntland u istaaga jiritaanka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed sida idinka muuqatay iyo sida taladiinu marka horeba ahayd una istaaga jiritaanka iyo midnimada reer Puntland labaduba waa muqadas aad baad u mahadsantihiin hambalyan leeyahay gudoomiyaha cusub maxamuud waana mahadsantihiin waana salaam ayaa kulliga assalaamu calaykum
wasiir aad iyo aad baa u mahadsantahay khudbad qiimo badan baa noo jeedisay inkastoo xoogaa nagu dheeraysay aad u mahadsantahay waxaan rabaa inaan u yeero halkaan ugu yeero xildhibaankeenna Ontario inuu kelmadiisa yiraahdo insha Allah محمد فرن حلو سنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم السلام يا كل جين. وحال كان كسلام يا وزير كهرة أضياشة ماشان فدية هذا محمد أبو بكر هذا موسى شاتي أحمد كين كونغ أضياشة كله كيسة وأصلا الله أوتون لوجي مت هذا باكن وحال هال كان ومدنا وهم بلي صاحب كي محمود السن محمود أنا دور سنة نقلنا وحنا كوا قلنا إن آد ودال بدن شقة بدن أنا يراد العصب أو كندي يمد وحيكسو زائدين إن يهين أنا يراد آد وحقبض بدن سيبر أنا يراد قال كندا وهل كان وكهل قدومي هذا إدريس يا سجن اسم كساحب في عينهن ونهانتي وحامد مقالة تورنتو إني سبدلش وحامد إن أنا يراد في فرعون صبحان أنا يرد دلالة لغنكي يديه وحيورن سوعلي مركب كل جود آدبان وقفر أحسن هاي أنا يرد ميشان جوكتنا ريربونت لان كليا معها سومالي نبعاو ميشان جوكتا مركب كل جين وكم هاتنتين كسقب كشان اسم كانوا حالنا هاي هوشان أديك ياسمين وقدمي كحيان الله دورتي قرب كينا لها قلو قدومي مركب لوجود دورت ما شقدان إن مشار لوجود سينايو ما هي إن عد تايرو كوسين يسوع هذا اللي قرب أنا شقق بتيت وأنا هول آد وأدق وحنقول أصنعه هم بلينا يا سيف وأصنعها قدومي هراء وشقق بدن سوق بتي وحنقول ها علكان كعد سنة جاليده هكذا نورا يفرين تنقص عتها جاليده هكذا إن إذا كان دانيرو أصوح القانتان ودانيرو النص دورتان سومالي وحيس بدل الساعة ما هو بمركز دانيرو لو ديبو marka kulligii waan idin salaamayaa gudoomiye soo dhaw insha Allah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh halkan waxa uu yeerayaa adeer bakin waa gudoomiyihii hore ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hadalka runtii ma badinayo waxa weeye waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa Isin Maxamuud oo runtii loo asiibay shaqadan loo magacaabay anigu runtii nin aan aad iyo aad loo dhacsanahay aad iyo aad hadda aan la shaqeyn iyo intii aan arkay ummad isku wadi kara waxaan kaloo runtii cadeynayaa gudoomiyihii hore Seif shaqo aad u dheer ayaan soo wada qabanay oo xagga samafalka ah gudoomiye Seif isagana waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay وأنا كسود وأنا تهذا كله ياسمين وقف أنا رنت برسنا وقت الدار أنكرانيو ورنتي مركب مور سنة هاي قبض مرة ولما قعاب شكدا ياسمين وحنا لا يسود وأبتي أديكنا رنتي شكدان رنتي قدوم كرين كوتاي بالله عن وكتوله إندوغانسا رنتي أنا وطن هاي أضيالشي iyo waxgaradkii magaalada oo noo hogaaminaya boqorkeena King Kong macnaha waa la isku raacay waana la wada ayiday yar iyo weynba inuu nabatalo isinka Maxamuud waxaana la isin soo dhawow waxa runtii halkaan nala jooga oo meel dheer nooga yimid oo ana hadleen laakiin ka xishooday aan wakiilka isboortiga ee wasaaradda isboortiga macnaha xiriirku waa hadli doonaa boqorkeys asagana Ottawa nooga yimid oo dhaway down marka boqor abshir waxaan rabaa dadka in laga barto inuu Muhammad Isaago boqor Isaag boqorka waa ninkaas arkaysaan waa ninka sano walba last 7 sano oo isboortiga Puntland sano walba tagay qalab iyo ciyaaro iyo banooniyaal iyo dhar geenayay kana maamulkeeda iyo shaqadeedana aniga si gaar ah aniga asaga aan hawada qabanayna marka boqorka aad baan ku mahad celinayaa waxa kaloo jooga Kaysar oo asaga xiriirka asaga gudoomiyaha oo Ottawa ka yimid
أصلا أفكر كل دونا وأنا ما سنت كلنا السلام عليكم. waxaan rabaa inaan ku xijiyo u yeero Cabdiraxmaan Qaxiye oo ku hadli doona afka dhalinyarada ahna la taliyaha waxbarasho oo waxa weeye dawladda hoose. بسم الله الرحمن الرحيم أنا هرت سفي عن اللي يسود جيسو ماشى وحن ملايين يا قايلة بدن بعد عيسى مركي الله هذا يوقف كلامه مقليه مركوا ما سنتين مركوا هو وحن رواينا عن سلان ديران وسود جديد دمان دت كان كسو غيب قال حفلة دان يو أنتي سوا باب الشباب عاوي وربدن مجرو ماشى وحن وجوجنا إنه نوجهم بلي إنه قدوميها عصب حلك الله دورتي جالية تورنتو وعنا ربنا إنه الله شقي إنه قدوميها قدوميها يو تيم كيسة قدومية سيف أو كهر ريبا شقدان وقت بدأ سوق لي رنتينا شقة مدرسة عتبة هيد بروسيس كو وحناها وحلا كل من دليرة أنتوا دي بدنايد مركب سيستم كلا ديسي وضياش جوني على سوار كي فاينل لما أنت نتاجنا هاي أو إن حلو رجنتي لسماية مركا سجود إن introduction إن كسيو تيم كان عصب من الله شقيا ربنا دمانتنا ووحنا صارن وحنا هذا وفرح سنة يعاوي إن أركو جاليدان هذا اللي ديسيو إن جالديه ودن كان كدسنا الصومالي ده دمانتو تبي جوجان قيمة وين بينه نوتاي جاليد صوماليات سوكرورتي وواحد بدن قبض دون تويه تاسان لي هاي مجا على سي وهو مجا على الليرة ده إذا كم يشوف فريا دمانتو دوار الليرو وحوا وين يدخلوا جيران دتك ماركا وحرجينا يا دمانتين دليران هاي هل كلمة بارا وين حوجيو تيرك كواد بالشوا حبلهنا ورنتي هستي قدام بيساد اللي نكو أبماني حبلها الصومالية دمانتين وتيركا وأنا كوا ماركتين وكو منفعة بدن وحكا صلى قبرنيو ماشي أنا يجي نو قرحيي وقروح ذا نو سمي ماركا ما دام هذا اللي يريد اللي هذا الكيك اللي بعده أن كدر يوحي تاي ودنكي إنه كان نمد الصومالية يودن كان بوحبينه كلنا بيس كانوا هذا هل كانوا جوجان ذاتك وحن كلوت تري الله ولي بدل ليرا ما دام أنا نروح برشة سيستم كيت كشقيو سيرجنا عن لشقيني حوجا وحافظنا نور التوب كان سنة كها أمباسدور وحلا برتو ذاتك أنا هلقول يرجلين وحلا برتو and unity جنا هلا إلاليو وأنا ما تنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن عادي أدوما سيسون وقصو كوبي إن شاء الله ورجعنا يقفل موساس كون وقصو كوبال كما حقول يا محمد كايسر قدومية حريك وبدا عكت بونتلاند وانا كبي وطنكي إن شاء الله كلمتيس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ضمان أخيار تاركان سكوت من برشوين كسوق يبقى شيء حفلة على مسار كإسلام كياسمين odayaasha iyo cuqaasha iyo wasiirada iyo dhalinyarada iyo dhamaantii qof walba masabkiisa ayaan ku salaamayaa waa maanta dhan baa la hadlayay hadalka inaan soo koobiyaan rabaa hadduu allah u dareedmo waxaan rabaa laba qodob inaan ka hadla aniga maadaama aan ahay ambassador xiriir kubadda cagta North America u qaabilsan waxaan rabaa inaan ka hadlo xiriirka cusub ee dowladda Puntland ee dhawaan la magacaabay ama ku guuleystay xilka أستاذ حكيم كيانو مقعيس كوها اللي وحروا إن شقوا ناكسن أو قروح بدن بودن كي قبتي سأوقتي بوحب بلا عيارة هي هدر دقموين كعاصمتها سقالك قبل بنتلان وحسمي ليسنسي قف كادوس ليسنسي هيسن كبدا عكتا قيب كمان نقول كروه وأمركو جوريسو ليسنسي وكبحيي بنتلان وحطوا براي قرصوريال وودري حرير كبدا عكتا الصومالي سوى قيب كاه ونيجي مقالة جروه ماذا قرصور كحير كبدا عكت الصومالية يتيم كيس هذا وكسر مقالة بوساسو وحن رجينا يا كبدا عكت بنتلان هرم داي وحايونا قيب كها سفر كا أو تجي تدي وقيب كهاين نكال عدة يموسى يدمانتود وضياشي مش تجي وحسوا أركان وح كسر بنتلان يا كبدا ديس هرم داي waxaan rajaynayaa qurba joogto inay ku darsato doorka dhalinyarada doorkoodu waa isboortiga waxaan hadda dhalinyarada u jeedaan qayb bay ka yihiin inay ciyaaraha daawadaan marka anoo ku hadlaya magacayga iyo anoo ku hadlaya magaca gudoomiyahaba waxaan rajaynayaa koobkii quruxda badnayd ee hadda la qabtay ee loogu magac daray magaca shahuuda inuu si qurux badan ku soo dhamaaday maantana ay finaal birina ay dheelayaan degmada Garowe iyo Qardho
waxaan rajaynayaa in si qurux badan ku soo dhammaado waxaana uu ku xiga hadda broseska uu guddoomiyaha uu ku xiga waxa waaye koobkii qurba joogta oo qurba joog weli kama dhicin in koob qurba joog lagu qabto magaalada garowe ama gaalkacyo saa ogtihiinba garoomada haddeer gaalkacyo 2 garoon bay leedahay garowe garoon bay leedahay boosaaso haddeerna waa u dhammaaday haddana waxaa dabka saaran garoonkii qardho iyo garoonkii baran waa ilaahay mahadiis madaxweynaha dowladda puntland waa ugu mahad celinayaa halla taageero dhalinyarada isboortiga halla taageero waa mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsan yahay kaysar waxaa ku darayaa oo kale warmaahada ka dheere hadda koobka quruxda badan oo la qabtay oo waxa weeye hadda u yaala oo hadda finalka maraya ninka waxa weeye hirgeliyay oo jeebkiisa ka iibiyay oo waxa weeye u dhiibay oo dhigay hadda ninka halka fadhiya waa gudoomiye maxamuud weeye taa ogaada magaciisa wuxuu kaga qoraya dhanka hoose ee koobka kaga qoraya oo kaga sharaxaya marka hadda gudoomiye initiative-kiisa ugu horeeyay waxa weeye waa taas waxa uu dadka dhow jeedaan oo daawanayaan insha Allah wax kala jeeyna wax badan oo kale waxa halkan uu yeelay Ismaaciil Cabdullaah kalmadiisa u dhaw wuxuu gudoomiye ku xigeenka iyo gudoomiyaha insha Allah xafladda weynoo gabagaba insha Allah haddii aan ka bacayna entertainment-ga galayna waa kan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله شرفي إيتا عاو ريب بنتنا إن كلا سوق قالوا ما أنا مركي جوري سر ما أنا وريم نصورناها 1998 كمركي الأساس هي إلا إيو ما أنت اللي جوا مرة بقوا تيجي جري أو كم إذا ريب بنتنا أيام هاي يعني قرط تاهر تو هذا إن شاء الله تعالى هذا لواد بنتنا مركي الشيء ضربة حقا يعني صح قاعدة لكن بنتلان هو صوماليا هو بنتلان وهو يدي فدرال كمركة تهلو هذا هو يدنا مركة هو يدنا عروب ذي الدشا صوماليا واحد علي دولة مدن كان هو بنتلان مركة صوماليا أنا ولاس كان جرو واحد بالله ضماهن 1943 يوسف كان يدير يعني قبل يقول تريا جري أو صومال لماذا واحد له وعير الصوماليا قبل نمو وحول جاي اللي قرا قبال لا يهرتا بين نقون أمسك قاشانة نمنكا قنتري أو حرمة قور والبا وتاجم كان لا قربين معناه يوقر نقدونه تي تاجم يوقر نقدونه 1972 أيوب ننتهي وما نتعب بشانيه ما كان أنا قاعد أشوف سكت أنت تي وتري يوسف كان يدير أيام هذا التاجم مركز الصومالي أنا غير بنتلان soomaalinimada waxa weyn bay idinku fadhidaa anaguna reer Puntland aan ka midnahay marka hal raadiyo soomaalinimada waxaan rabnaa maanta walaalkeen maxamed waa inuu maxamuud inuu u garna qarnaa maanta insha Allah taala laba xasan waa xasan shiraab gaal iyo xasan sheekh iyo dani iyo shariif inuu u garna qan doonayna insha Allah taala waana maasantiin waxaan halkan u yeerayaa professor Yusuf oo ku hadlaya afka aqoonyahanka هذا سودو ما وادو متى هذا وجه أركب واي مرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال يمروين مرتي شرفتا وحقرتك دليرada iyo dhamaan bulshada Puntland ee ku dhaqan Toronto sharaf weyn ayay ii tahay inaan maanta idin hor istaago munaasabadan qiimaha badan ee caleemasaarka Puntland jaaliyadda Puntland ee magaalada Toronto maanta waa maalin muujinaysa midnimo wadajir iyo horumar waxaan ku faraxsanahay inaan qayb ka noqday munaasabadan isu keentay walaalo Soomaaliyeed oo ay mideysay jacaylka Puntland dhaqankeena iyo horumarkeena iyo bulshadeena aniga waxaan u arkaa aaminsanahay in qurba joogtu ay lafdhabarta muhiim u tahay horumarka bulshada waxaan nahay dad leh karti aqoon iyo awood aan ku taageeri karno dalkeena iyo jiilka soo koraya waxaa muhiim ah inaan ilaalino afkeena dhaqankeena iyo isku xirnaanta bulshada waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa hoggaanka cusub ee maanta la caleema saarayo hoggaanku ma aha sharaf kaliya waa mas'uuliyad culus oo u baahan daacadnimo iyo dulqaad iyo adeeg bulsho waxaan rajaynayaa in hoggaanka cusub uu noqdo mid mideeya bulshada dhiirigeliya dhalinyarada
kana shaqeeya horumarka iyo wadajirka dhalinyarada waxaan leeyahay idinka ayaa mustaqbalkii bulshada ah ku dadaala waxbarashada anshaxa iyo midnimada ha iloobina meeshii aad ka timid iyo qiimaha dhaqankiina ugu dambeyn waxaan ilaah uga baryayaa inuu munaasibadan ka dhigo mid khayr iyo barako leh hoggaanka cusubna ku garab galo howlaha loo igmaday mahadsanidin بروفيسور يوسف أنا هذا ما صنت هل كان حوير يا عبد الرحمن دولير وقدوميها جالية سامبيا كندا. السلام عليكم دمانتين مرتشرف كسوق يبقى شيء حفلة جالية بودلان walaalkay wuxuu ahaa gudoomiyahayga ururka dhalinyarada Zambia marka ninka aad keenteen waa nin la ka soo kontrolay 2 sano wada shaqeynay shaqo fiican wax gal ah oo laguna munaafacaday buu qabtay waxaan xasuustaa xasan koor markii last year kii soo dhaafay Zambia wuxuu ka qabtay shaqo badan oo masjidka dhismihiisa uu ka qayb galay marka waxaana lacagtaasi waxa laga ururiyay dhalinyarada Zambia marka waxa leeyahay ninkan waa nin waxtar leh shaqo fiican qabtay waxaan ka qaateen gudoomiyihii laakiin ani mar walba laba xaafadood baan ku jiraa ma garad marka xagana waa marka shaqada hal wado marka waxaan salaamayaa dhammaan jaaliyada ka soo qayb gashay meeshan Soomaalida isku timid dhamaantooda samafala nuuraya ururka today dhammaan marshal ka soo qayb gashay waxaan ku darsanayaa mid horta hore qofka bini'aadanka wuxuu u baahan yahay in la garab istaago waan ku dooranay bax shaqada adigu qabo wixii ku yaal dhameystiro waxaas waxaan ma tarta gudoomiyaha markuu noo ahaa naka shaqo badan buu qabtay laakiin kaligiis buu waxay ku aatay inuu wax badan qabto dadku inay gadaal ka istaagaan marka waxaan leeyahay Soomaali sheekada ha bilaabinine tuuro socodisa dhicine hala garab istaago ninkan anna wax tar leh dhalinyaro ah xafiif ah shaqo fiican leh marka oo walaalkii intaas yar dhigay ninka waa faan buu ku xiray meesha laakiin faan ma ahay waa nin wax garasho leh dadaal leh cibaado fiican leh qofkan waxa laga fiirshaa qofka marka dooranayso qofka muxuu yahay yuu shaqeeyo horta ka shaqeeyo muxuu qabtaa adinka marka ninkan shaqooyin fiican nidaama Zambia buu ninkan ka wada imaanay waa walaalkayga marka ilaa background-kiisa si fiican qaadnaa marka waan la isku yeelan karo waa isinkeeni noloba ku leeyahay walaalkay dhamaan waa salaamantii sharaftii aad iyo aad baa maasantay Cabdiraxmaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo jaaliyada Soomaaliyeed oo dhan runtii meeshaan ummadda Soomaaliyeed dhan baa yimaadeen waxaan rabaa inaan ku dhaho congratulations gudoomiyaheena isin Maxamuud iyo Yaasmiin walaasheen shaqo fiican bay runtii hormuudkeeda noo galeen kollayba anagu magaaladan aan deganahay I don't know if dadka ay og yihiin laakiin runtii waxaan u maleynaa markii ugu horreysay oo dhalinyaro aan arko oo u kaceen ummadda Soomaaliyeed reer Puntland weliba marka maadaama aan raadinaynay dad noo shaqeeyo runtii waxaan jeclahay ummadda dhan inay maaragtay qayb ka noqdaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin marba inaan ku dheereeyo congratulations waa mahadsantihiin thank you ugu dambeyn halkan waxaan ugu yeerayaa list but not the last waxaan ugu yeerayaa gudoomiyihii hore ee jaaliyadda Toronto ee Canada Mr. Saif waa nin qiimo badan runtiina dadkani jaaliyadda shaqo badan u soo qabtay oday soo shaqeeyay waxa weeye isku xirka iyo dadkan wada jirka ka soo shaqeeyay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa soo dhawo gudoomiye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan maraynayaa alla ismaqlahayo caaw baasha waan ku dheereeyo waxaan isla hadda mar hore soo gabagabeynayaan xogaa waxaan mooday inaan high school joogo oo shahaadooyinka badan markaa arkay baan yaabay aan laftirkaygu halkan waxaan rabaa salaanta islaamka inaan ku soo wadaamo dhammaantiin si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo dadkii soo qaban qaabiyay xafladda tan oo mataqaanaa waqtiga badan geliyey oo gabdhaha ay mataqaanaa muhiimka u ahaayeen waxaan ka garanayaa hodan takar islaamadii iyo deeqo iyo qayrun iyo inta kale oo aan garanayno aan magac dhibina waxa la waa mahadsantihiin iyo dhalinyaradii wiilasha intana ka soo qayb gashay aniga magacayga waxa la yiraahdaa Sayf Hussein Cilmi
ayatullahi khumeyniga nool baan ahaa oo muddo in badan ay ka soo shaqaynayay jaaliyadda puntland waxaan soo qabanay xafladaha iyo soo dhaweynta iyo delegationka iyo waxyaalaha aanu samayn jiray oo dhan intii ka sii horreysana waxaa shaqaynahayay dad badan oo naga sii horreeyey oo aan ka xusayo hodan axmed aan ka xusahayo oo markaas shaqo badan ayaa laftigeeda ka soo qabatay annagu markaan meeshaan nimid oo aanu bilownay shaqada tan waxaa jiray hambaraaqsanaan badan waxaa jidhay mataqaanaa jaaliyadda oo mataqaanaa shaqadeedu ay gabaabsi tahay runtii waxaan isugu keeni jiray hoolasha markii loo fiirsho 5,000 ilaa 4,000 dad ku dhow baan isugu keeni jiray waxyaalihii marka aanu soo qabanay waqtigu hadda waa iska gabagabo jaaliyadda markii aanu ka shaqaynanay midnimada iyo wadajirka jaaliyadda oo runtii aan aad uga shaqaynay xafladaha sanadlaha ah oo aanu si joogto ah aan u qaban jiray dhaqaale aruurinta markii la gaaro abaaraha hadda tusaale ahaan oo kale gaalkacyo magaalada la yidhaahdo waxaa lagula dagaalamaya al-shabaab baabuurta booliska iyo kuwa kale oo hadda mataqaanaa gaariga shabaqlaha iyo jaaliyadaha puntland baa gaday annagu qaybtayadaan ka qaadanay waliba qaybta u badnayd baan qaadanay qaybta dadka Canada sidoo kale abaarihii dhacay markay dawladda iyo dadku soo qayliyaan waa ka qayb qaadan jiray biyaha iyo markay la tagaan ummadda oo yiraahdaan cirna ma joogno dhul ma joogno ayada laftirkeeda waxaanu ka qayb qaadan jiray waxaanu nahay dadka kaliya oo waxay la shaqaynayay isinka iyo deeqo baan ka xasuustaa dadkii 5 days ba waxaan ku aruurinay lacagtii ugu tirada badnayd markii daadka qarna u dhacay way iska jiraa habacsanaan badan muddo badan baan maqnaay oo waddanka laftiisa dalkiisa ka maqnaa waxaan ka soo qayb galay doorashooyinkii Puntland ka dhacay oo golaha deegaanka waxaan u maleynayaa inaan ahay muwaadinka kaliya oo jooga magaalada oo kaarkiisa cod bixinta haysta oo ka socday waddankii oo implementation ku soo sameeyay mataqaanaa doorashooyinkii aan ka soo qayb galay waxyaalaha aan soo qabanay meeshan kuma soo koobi karo waqtigu aad iyo aad buu u gaaban yahay saaxiibkay maxamuud isinka magac kale la yiraahdo inaan aqoono waxa la yiraahdaa markaan bartay faroole waa la oran jiray marka faroolana waa la dhahaa waxaan leeyahay isin soo dhawow gudoomiye soo dhawow waanu soo wada shaqaynay aniga soo goob waxbarasho isku baranay waanu soo wada dagaalanay waanu soo wada dadaalay shaqooyin badan baan soo wada qabanay halkaan waxaan rabaa inaan ka xuso dadkii ila soo shaqayn jiray oo aadka u tirada badnaa oo aan ka xusayo dhalinyarada waliba gabdhaha hadda taas soo hadal qaadid batii kala xanaaqaysa waxaa la idin kala garan mayno guuleysta wiilasha waxaan ka xusayaa saaxiibkay Bashiir Ciise Boqorka oo runtii nin aad iyo aad u dadaal badan ahaa oo shaqayn jiray oo caawa ka maqan meesha tan aan jeclaan lahayn nala joogo sidoo kale Ismaaciil nin la yiraahdo oo dhalinyaro ah soo nala shaqayn jiray halkaan ma ka xusayaa haddaan soo laabtay gudoomiyaha annagu wixii aan soo qabanay oo aan isla joognay anaga gudoomiyaha oo joognay wixii kale oo haatan talooyina iyo wixii information oo kale aan hayay ayadana waa ku wareejinaya haddii la haydmo si sharaf leh oo walaalnimo ah oo cunaan ugu wareejiyay haddaan xataa idin soo sheeka dhaafo waxaan leeyahay 2022 baan waxaan rabay inaan ku wareejiyo ninka la yiraahdo Maxamuud gudoomiyaha uu ka cuda gaartay marar badan wuxuu yirnay oo anu shaqada meel aad joogtid ma sii haweysanayo haddee haatan waxaan u maleynayaa waa Cumar Aragnay Ciise soo soco waana imaan doontaa bay la tahay qoladii kalena marka gudoomiye waanu soo wada shaqaynay tixyar xasan gareetay baa waxay ahayd daambari adoo yaal cirko doola koonkaday reerku adoo raac anna awrta dabarlay intay kaaga daajeen labadaadii ardilay tusoo waxa ka rabtaan kulay tahay dameer hayn reerkii ka dul guuriyo dariskii wax kugu tara markay dareen ku haysaa dad kale ogaataa saaxiibkay meelo badan oo rag iga carareen beelo jooge talooyinka ugu macquulsan oo ugu fiican buu siin jiray asaga iyo Bashiir iyo Ismaaciil wuxuu ahaa nin degan oday ah aqoon-yahana ahludiina mataqaanaa xishood badan waxyaalo badan oo adamcay inaan ku dhiirado diiday oo yiri waxaas aan iska dayno marka waa test and trust ninkan waa test and trust waxaan leeyahay gudoomiye siyaasaddu marahal moral justice hebel baa la qancinaya iyo hebel baa faraxsan iyo hebel baa xanaaqsan malahan haddii anigu aan rabo inaan dadkoo dhan wada qanciyo dee waxay noqon lahayd inaan askari murajiyo intaan bannaanka istaago waxa maxaa shaqaynaya baa loo shaqeeyaa ee looma shaqeeyo maxaa xaq marka dadka
bini aadanka oo meeshan jooga oo reer community-ga hadda reer Toronto dad badan oo wanaagsan ku jiraan laakiin xoogaa isaysaysi uu imaan karaa shaqadaada wado adaad gudoomiye u ah dadka gudoomiyaha la doortay oo deegaanka joogay oo mataqaana matalaya reer Puntland oo inta soo shaqeynayay oo muddo 10 sano ku dhow volunteer ku soo shaqeynayay oo haddana raba volunteer ku soo shaqeeyaa tahay waxaan kula talinayaa waanaad yeelataa hal adayg go'aankii 1 minute to midnight oo kale waanaad qaataa dadku waxa la leeyahay waxaan laguma midaysna la oran karaa wax lagu midaysan yahay adduunka ma jiraan dadku waa wada cadaan lahaayeen waa wada madoobaan lahaayeen waa gaabnaan lahaayeen waa dheeraan lahaayeen wajiyada saa markaa u fiirisay dadka si ay kala duwan yihiin ayaa caqliga ka dambeeyana kala duwan yahay marka waa inaad taad aamintaa oday baa hadda ka hor sheeko yar ku darayaayo masaajid anoo ku jirnaa iimaanku wuxuu yiri istawu taqaara marka oday baa nagu jiray wuxuu yiri faraha hala simo oday suu dheer baa nagu jiray markaas yiri kuwan ilaahay sameeyay baa simi waay adigu simi baysa salaada naga bixi dadka marka adeer ma qancin ka dhida shaqada qabo waana ku soo dhaweynayaa waxaan rabaa insha Allah hadii lahayd gudoomiyaha inaan ku wareejiyo faylka ugu dambeyntii waxaan idin ka codsanayaa dhalinyarada gabdhaha oday reer Puntland ee Toronto intaan soo wada shaqeynay intaan soo wada shaqeyn intii ila shaqeysay intii iga shaqeysay intii dhimatay inta nool inta maqan inta joogta waxaan idin marqaati gashanayaa maantay cafi aliye masaawax baad iga tihiin aniga wax aan idin haysta akhriyo adduun male iga gaarsiiyay fiidiyowgaas inta aniga waxay haystana waa inay cafido waa xala dhalay in laga noqdo anigu I am not in the picture waa shaqeynaya community-ga waa la shaqeynayaa waxyaalo badan baa dhici kara waa la sameyn karaa waxba la iska sheegi karaa waxa wanaag wadida xumaan loo sameyn karaa marka waxaan leeyahay akhriyo adduunba waxaan iga tihiin cafi aliye masaawax intiina joogtay intiina maqanba waxaan ku wareejinayaa dokumentiga gudoomiyaha oo ku soo dhaweynayo isinka Maxamuud Faroole waxa la ku soo dhawow waxaan rajaynayaa dadka inay soo afgarataan adiga sidii khayr iyo farmaajo soo afgarteen oo kale inay isu fahantaan adaaniga ugu mid ducayn jireen waa talin jiray marka ducada ma aqaan rag ducayn jiray lagu yeerayaa gudoomiyaha waxa la yaabaa gudoomiye soo dhawow gabdhaha Puntland oo hadiyad iyo shaal guddoonsiinaya gudoomiyaha waxa ay raacday gudoomiye Sayf oo guddoonsiinaya gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka gabdhaha u gudbin istaanbay ahaada shahaado sharaf ugu talagalay gudoomiyaha cusub iyo gudoomiye ku-xigeenka cusub taas waa gudoomiyaha sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka Yasmin Daahir shahaado sharafta ugu talagalay gudoomiye Sayf waxa ay haray gudoomiye Sayf inuu guddoonsiiyo gudoomiye Maxamuud inuu gudoomiye Sayf gudoomiyaha hore shahaado sharaf sida qaadada gudoomiyaha nasiib gooyaal shaala la saaraya insha Allah gabdhaha Puntland sharafta badan gudoomiye waa la caleema saaray waa la shaal saaray miisaanka culus mujtamaca Puntland baad matasha dhammaano ku midaysa Toronto guulaysa Maxamuud gudoomiye Munaaliyo miisaanka culus mujtamaca Puntland baad matasha dhammaano ku midaysa Toronto guulaysa Maxamuud Magacii
غاليها تاي مسؤول غاليها تاي مرتاح حسيدو بيح موديها وإفتيشا اسم وقتايا مسؤول غاليها تاي مسؤول غاليها تاي مسؤول غاليها تاي مسؤول غاليها تاي كلمتنا مضوات ومحصوتك أبو افتحنا بلادي كمقوي قبيلكو مفتاحي وراقو أديقا أمامو كلمتنا مضوات ومحصوتك أبو افتحنا بلادي كمقوي قبيلكو مفتاحي وراقو وليس محمود مية الغابة مملوك فيه ملك العذر القصر مركوني نفتي عوياتي مية الغابة مملوك فيه ملك العذر القصر مركوني نفتي عوياتي وما سنتين وما سنتين أفرست وما سنتين بدون وأنا كقبا وهدينتا هذا وما سنتين إن هذا الكيس كلمة دي سيبا هداي أنا قدومين ويسرع صدق بديس إن شاء الله مركهري نوفرست إن شاء الله صبر يسمع صوص على غروح بدنا وكلا إن شاء الله قدوم يسودو أوكي بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين وسلامتين وقتي واسكا جبو وين بان سو ديارسداي meesha ii taala laakiin waqtigu ma saamaxayo sidaa darteed waa soo koobaya insha Allah marka ugu horeysa Ilaahay oo ma iska leh meeshan suukan keenay dhamaanteen marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa dhamaan dadkii soo agaasimay xafladan quruxda badan sharafta leh waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa hablaheena sharafta leh meeshan noo qurxiyay qiimaha noo sameeyay aad iyo aad baa u mahadsantihiin boqolkiiba boqol inta haddaan ka gudbo saddex qodob baan kusoo koobayaa waxaan horta codsanayaa dhammaan xubnaha jaaliyadda in halkan yimaadaan please xafso iyo xuseen حسين فيصل iyo xafso soo dhawaada please waxaan u maleynayaa inay aysan joogin si loo barto xubnaha jaaliyadda dhammaantood waan sii soconayaa insha allah biidni illahi tacaala qoftan ila taagan waa guddoomiye ku-xigeenkii jaaliyadda yaasmiin xaaji daahir waxaan rabaa si kooban inaan maaragtay uga warramo yaasmiin runtii waxa waaye qof caawa dhan waxaa laiga sheekeynayay anaa laiga sheekeynayay marka anugu iska sheekeymayo wixii aan ahaa waa la sheegay waxaan rabaa inaan iyaga dhinacooda xoogaa aan u wareego marka xafso iyo yaasmiin waxaan isku barannay qabanqaabada xafladaha soo dhoweynta martiqaadka wixii Puntland loo qabanayo halkan iyo dhinacaas labadaba runtii waxaan aaminsanahay taladii iyo la tashiga badnaa in ay tahay qofka kaliya ee la jaan qaadi kara jaaliyadda horena u wadi karta marka u sacabiyo mar labaad waxqabadkeedu Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal yar iyo waxqabad badan marka qofku inuu xishoodo oo uu ka dhudhuunto kaamirooyinka waxa u dheer waxqabadka qofka oo badan xabso sidoo kale ma sha Allah
wax badan waxa la dhahay raggu hal meel bay isku ururiyaan hadda waa balance way waa 2-2 oo u jeedaan beelanta intaadan ka gudbo waan soo dhaweynayaa dhammaan xubnaha sharafta leh ee jaaliyadda igula jira tiimkayga waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo qayb gashay meeshaan intii noo qurxisay intii soo qaban qaabisay intii na dooratay iyo dhammaan mucaarad iyo maxaafid labadaba insha Allah Puntland waxaan u rajaynayaa guul waxa inoo ballana waxqabad iyo hadal yar aad iyo aad baa u mahadsantihiin waqtiga gabagabada dartiis hadalkay intaasaan kusoo gabagabeynayaa waxaan rabaa inaan kelmad yar siiyo saddexda qof oo ila taagan 1 minute mid walba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي هو حسين فيصل حسين aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo guddiga cusub jaaliyadda Puntland waxaan rajeynayaa inaan shaqo wanaagsan qaban doono waxaan rajeynayaa inaad nala shaqayn doontaan idinkuna si buuxda aad baan idin salaamayaa dhammaantiin thank you magacaygu xafsa cabdulqaadir maxamed aad baan ugu gudoomiyaha xilkiis ii dhiibay ilaahay ha ii fududeeyo midii ka soo baxda Allah iga dhigo insha Allah intaasaan kusoo gabagabeynaa waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobonimo aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo uga soo safartay kitchener buraanbur qiimo badan inay halkaan uga tiriso maamulka cusub ee jaaliyadda guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo maamulkiisa soo dhawow abwaanad waa ka xunaa inaan gadaal kuu dhigno dadka xoogaa nagu yara batay marka soo dhawow abwaanad insha Allah inoo soko bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo caleemasaarka guddoomiyaha dhalinyarada ah weliba sidaan u malaynayo guri wuxuu ka soo baxay dhaqan because magaciisa ka garataa islaan maxamuud xasan aw maxamed iyo waxaan ku faraxsanahay kale inuu guddoomiye ku-xigeen ay tahay gabadh oo sheekada laga dhigay 4.5 aad ugu faraxsanahay ila rageed baa maaragtay meel kasta saf loo soo gali jiray inkastoo wiilka meega qaadanaya aan maxkamad saari doono hal gabar bas u siiyay aniga inaa ugu dambeeyo waan codsaday oo dadka la siiyo dulqaadaan u leeyahay guddoomiyaha isaga ayaa personal ii soo casuumay oo baabuur qurux badan gurigayga iigu soo diray asaga iyo fartuun ciise aad iyo aad ay u mahadsan yihiin aniga jaaliyadda Puntland intay wadanka la sameynayaybo waxaan ahaa qofka kaliya markasta ka soo qayb gasha soo dhow sanad guuradii qiimaha iyo qaayaha lahayd ee 28aad ee loo dabaaldegi doono August 1st Puntland waa sanadkii 28aad aan jeclahay hadaan khaldanayn intaasi waa mahadcelinta aan ugu talagalay dadka madasha iskugu yimid dadweynaha madasha joogow salaan macaan dadweynaha madasha joogow salaan macaan muxubbaiya gacanlaku miisama kuman malyuun midigta iyo bidixda ubax miranoon ku wado marwooyin iyo mudane macaankeeda iga mulkiya xafladda iyo kulanka caawo xalaawida oo xaakimiintii Puntland soo xanaaniyeen xeradhigeediyo wuxuu xawligeedu yahay xadhiga eebiya sharciga xayndaabka looga dhigay xiftii nabadiina daayinkay hanagu xafido mawlahana abuurtay mahad baan u celinayaa xafladda iyo maamuuska mahad baan ka celinayaa saxaafadda midaysan mahad baan ka celinayaa guddoomiyaha maxamuud oo magiciisu dheer yahay
قدومي محمود مقاعيس دهر ياهي دعاء مقصود بهانكو مرينيا محمود ومقاعق لقى الشقي من المعان ملايكتو جبت مسلم كوكو بديهين مقام كي فردوس النبي معيسى نقو واحد مهانيسي بذيك تلقى قديم حلكا لقو ديب المولى هيا كل دبرو قدومي سادا يا مسادا نسكالي ومروي ياسمين يادا مسكو هيا شالي الدبلان بواينا دادهيسا دمر كدادا ليواينا دوروريسا ديبداي يقودا هيا هاي دايرا إيمان بلان دي ودولة دواينا دادهيسان دخلي غير دقالها واينا دوروريسان عدوغا دورير ما يارد مريال نقول انت سنكسو قبقبين يا مدام الدالية شال قدومي انا waxaa ku soo koray chaal iyadoo la leeyahay guri dawladeed ku soo koray chaal qudoomiye iyo ku xigeenka qaybta dhaqaalaha horta gabdhaha loogu dhiibay amaanada iyaga ku fiican qasnada gabadha gudoomiyaha waxaan ku leeyahay fariina ku faraya qaybta qasnada lacagta si dhaqaale loo helo hooyooyinka Puntland hooyooyin qiimo leh ayaa ka dhashay runtii abwaani waaweyn oo qiimo leh suugaantan aan tirinayno soo hoga tusaaleeyay intii dhimatay ilaahay u naxariisto inta xanuunsanaysa allaha caafiyo habri caashicuuda u jeedaa oo dadkii u soo dhabar adeegay ah hooyooyinkaas in la xuso oo la ixtiraamo oo Puntland la hinjiye u baahan tahay annagana garabkiina taaganahay waxaan hambaliyaynayaa sportiska Puntland ee sida quruxda badan leh gobolada u tartamayaan anigoo ka wakiil ah meesha ay ka soo jeedo gobolkii Hiiraan ayaa salaan idiga wadaa marka waa ku faraxsanahay waxaan leeyahay ku dayo Puntland ku dayo Puntland ku dayo meelay nabad buuxda taal waxaan sugaynaa haddii alla idmo waa ku faraxsanahay hawshaad qabateen waxaan rajaynaynaa faanka hadda la sheegay hawsha la qabtay dabadeed inuu yimaado baan rajaynaynaa insha allahu tacaala ما أعرف هذه أدومها علينا يا رمتي لأن دز وحوي حفظنا قروح بالمقف صوتين سورنا قروح بالفياش تقال جواد صورة كلام لما وحوي علينا لما أنا أنت كسوق بشيء أنت حتى الواحد قلت بينا أنت طيب تيجي
سودان بقدرني وبقوم داحوي بري بوساس قدم بوساس قدم بقدرني وقد صوتي طول سلام يا سودان بقدرني وبقوم داحوي بري بوساس قدم بوساس قدم بقدرني وصوت البخبر وصوت البخبر وصوت البخبر وصوت أبرح بالغلا بنان تشير ولكن يأل صبحني 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 الكويس أبو ما ستين
gudoomiyaha jaaliyadda Puntland ee Toronto محمود أو محمد إسنكا وأريد يلحن كأبوان محمد لقاف علمي موسيقي مولد حسن